aniga inta hadda aan ka hadlayo inaan ku eedeeyo saraakiishii sirdoonka ee Imaaraadka ee dugsigaas deganeed amarka bixiyay intaasba waan ogaaday amarka bixiyay aniga gurigeyga in la weeraro ayadoo sababo kale iyo hab kale lagu maartay ay loo isticmaalayo يعني si loo banaysto aniga meeshaas in aniga la igu qaarijiyo marka intaas waa inaan isleeyahay xogtaas anigu waan hayaa in la qaarijin rabay tiri ayaa meesha ka cadayd oo guriga markii la soo waray ani la dilal rabay dabcan arin aad u culus waaye ma fududa in hadalkaas macnaha in lagu dilayay meeshaas ragga ay soo maleegeen baarlamaanka uu go'aan uu ka gaaro dabcan fulinay u baahan tahay madaxda kale ee dalka arintaasi ma kala hadashay madaxda sare waxaysan ogeyn male madaxda sare dabcan markii dhibaatadu dhacday way ka xumaadeen runtii aad iyo aad bayna waana iga tacsiyadeeyeen gudina way qabteen saraakiil laakiin hadda cidda hawshan ku lug leh oo waxa fulinaysay imisa ayay dawladdan hadda jirtaa oo muxuu ahaa sanad jirsatay imisay gaari kartaa inay natiijo ka soo saarto marka sababtaas weey marka waxaan la aaday dacwadeedii baarlamaanka la aaday ugu dambeyntii dowladda Imaaraadka safaarada dabcan ku leeyahay magaalada Muqdisho iyaga laftirkooda maadaama senator baarlamaanka ka tirsan tahay ma u gudbisay cabasho aad leedahay maxaa gurigeyga loo soo weeraray oo saraakiishiinu ay falka kala hadashay mar baan arkay safiirka waxaana weydiiyey sababta ku kaliftay gurigeyga inay weeraraan wuxuuna ku jawaabay anigu ma aan weerarin dawladdaada ku weerartay marka haddee meel looga laabto oo nin isdifaacaya laakiin maxaa weeye waxaa la yidhi haruubs ninkii soo lisa loogyahay ninkii raba hasido marka waxaasna anigu waa wax maaragtay waa arrin u baahan in laga daba tago ayagaa laga rabaa inay caddeeyaan in falkan dawladda Soomaalida ku lug lahayd ayagaa laga rabaa inay caddeeyaan loo saaray inay arintan baaritaan ku sameeyaan ma is aragteen maxay qabteen digaas wali ismaan arag maaragtay waana haddii jawaab jirtana waa heli lahaa waa degdegi kulley waan la socdaa inay go'aan soo saareen aragtidooda soo saareen laakiin waana midda aan ku qaatay go'aankan hadda inaan sidaan aan anigu uga hadlo aad iyo aad u mahadsantahay هذا ما صنع